kulanti wanaagsan daawada ku soo dhawaada tabintan waxyaabaha aynu diiradda ku saari doono warbixintan gaarka waxa qayb ka ah guddiga doorashooyinka heer federaal oo war cusub ka soo saaray kursiga Fahad Yaasiin iyo laba kursi oo kale. Haddaba maxay tahay caqabada hortaagan kursiga Fahad Yaasiin shalay uu ku soo baxay danaha goonida ah ee laga leeyahay iyo xoga ka qorsoon ayaa warbixintan idin kula wadaagi doona. Villa Soomaaliya oo dejisay qorshe kale oo looga baxsanayo tilaabooyinka guddiga doorashooyinka ay ku carqaladaynayaan doorashada kursigaas uu Fahad Yaasiin ku soo baxay. Haddaba intaan gudagalin muuqaalkan fadlan si share garay oo saaxiibada kala gaarsii page-kana Somali Barays ku soo dhawow oo follow iyo like saar sidoo kale YouTube-kana booqo wahagaag. Haddii aynu ku bilowno gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal Muuse Gelle Yuusuf oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa ka warbixiyay xagga ay marayso doorashada golaha shacabka xilli ay maalmo kooban inaga xigaan muddadii loo qabtay dhamaystirkeeda. sidoo kale waxa uu shaaciyay gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal 3 kursi oo ilaa hadda ay hakiyeen kuwaas oo kala ah hoob 154 hoob 103 iyo hoob 86 kuwa uu sheegay in dib looga fiirsanayo. kuraastaasi habraacyadoodu way qaldameen kuma toosanayn sidii loogu talagalay. dib ayaa looga fiirsanayaa inta ka horeysa waa la joojiyo oo sidooda ay ahaanayaan ayuu yiri gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal. 3 kursi uu shaaciyo gudoomiyaha oo gabi ahaanba la hakiyay ayaa waxa ku jira kursigii hoob 86 oo shalay ku soo baxay la taliyaha amniga qaranka Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. guddiga ayaa horey u soo saaray go'aan ay ku diidayeen qabashada kursiga Fahad. guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal waxba iskama bedelin go'aankoodu ay ku hakiyeen kursiga hoob 86 sida daraadeed waxba kama jiraan natiijada waa lagu qaldamay ayaa lagu yiri qoraal ay soo saareen guddiga doorashooyinka. gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaa sheegay in doorashada ay dhamaatay gobolada waqooyi Baraawe halka ay deegaan doorashooyinka kale ay si habsami leh u socoto kuwaas oo ay ka soo baxeen 165 kursi halka ay wali dhiman yihiin 110 kursi. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kuwaas oo u jeeday ama indhaha ku haya doorashadii Soomaaliya oo socotay inay dhamaatay iyo meeshay marayso rajaynayana inay dawlad iyo helaan oo doorashadu ay u dhamaato. marka koobaad doorashadii inta badan way soo dhamaatay inta kale oo hadda harsan xawli bay ku socotaa inay waqti dhow soo dhamaato baan rajaynaynaa. goobaha ay ka dhamaatay waxa weeye Somaliland waxay 46 kursi oo ay lahayd way soo dhamayeen maanta ay soo gabagabowday. sidoo kale Baraawe iyagana way soo dhamaatay 26kii. goobaha koobaad oo dhan inta badan hawshu ay ka socotaa waana gabagabo. goobaha labaadna Banaadir baa waxa soo dhamaatay Baraawe waxaana ku jira Gaalkacyo iyo Boosaaso ayaa iyadana la asteeyay oo iyadana asbuucan soo socota inay ka bilaabato rajaynaynaa. guud ahaan kuraasta soo baxday 165 weeye waxaa harsan 110 kursi oo aan rajaynayno inay iyadana waqti dhow noogu soo dhamaato. guddiga doorashooyinka heer federaal iyagoo ilaalinaya habraaca gudanayana shaqooyinkooda waxay horey u joojiyeen 3 kursi oo kala ah 154 iyo hoob 103 iyo hoob 86 kuraastaas oo habraaceedu uu khaldamay amba aan ku toosnayn sidii loogu talagalay. dib ayaa looga fiirsanayaa si inta ka horeysana waa la joojiyay oo sidoodaas ayay ahaanayaan. waxaan rajaynayaa insha Allah guud ahaan doorashadu inay dhaqso u soo dhamaato oo goobaha hadda weli aan laga bilaabin dhaqso looga bilaabo. waxaan rajaynayaa insha Allah in dawlad Soomaaliyeed oo dhaqso ah ay noo dhalato 275 xildhibaan oo laga rabay aqalka hoosena ay dhaqso u soo dhamaato siday markii horeba 54 aqalka sare hore ugu soo dhamaatay halkaasna ay ka dhalato dawlad Soomaaliyeed. aad baan idin salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaan. waxaan rajaynayaa inaad kala socon doontaan page-ka. waxaan kaleeto rabaa in caddeeyo page-kii horey u carqaladoobay guddiga inuu gacanteena ku jiro isaga oo aan wax dhibaato ah aanu qabin. hadda kadibna laga raaci doono ama
lagala xiriiri doono lagala socon doono waxyaabaha doorashada ku saabsan iyo meelaha ay marayso aad iyo aad baan idin salaamaya. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Muuse Gelle Yuusuf gudoomiyaha guddiga doorashooyinka heer federaal ayaana ka dhawaajiyay in kursiga shalay ku soo baxay Fahad Yaasiin oo loo maray doorashadiisa hab aan waafaqsanayn sharciga isla markaana hore guddiga warga soo saareen balse guddiga doorashooyinka Hiirshabelle ay ka dhaga adeegeen waxayna sheegeen la amar dambe in laga fiirsan doono. xogaha hoose ee nahalna ayaa tibaaxaya in guddiga doorashooyinka heer federaal ay kiiska kursigaas iyo kuwa kaleba ay u gudbi doonaan guddiga xalinta khilaafaadka isla markaana sidaa daraadeed guddiga xalinta khilaafaadkana dhankooda ay xusi doonaan in la joojiyo kursigaasi. Soomaaliya waxaa ku daahday kala guurka xilliga doorashada siyaasadda iska soo horjeeda ayaa xiisado hor la sababay khilaafka farmaajo iyo Rooble ayaa marba marka ka dambaysa ka sii darayso. waqti kooban oo 25 Febraayo ayaa naga xigo lagu talagalay in lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka 110 xildhibaan ayaa wali la dooran inta badan maamulada kama bilaaban deegaan doorashada labaad xildhibaanada. guddiga doorashooyinka heer federaal ayaana haatan ku faanaya inay guula ka gaareen doorashada socota dalka. Ra'iisul Wasaare Rooble ayaa dhankiisa maantay madaxda maamul goboleedyada 5 maamul ugu baaqay inay si degdeg ah u soo gabagabeeyaan doorashada isla markaana waqtiga harsan ay yihiin maalmo kooban loogana faa'iideysan kara haddii sida ugu dhaqsiyaha badan loo ambaqaado soo gabagabeynta doorashada. wuxuu si gaar ah Rooble oo kaga mahad celiyay guddiga doorashooyinka gobolada waqooyi oo doorashadii soo afmeeray. inta ayaan ku soo gabagabeynaa tabintan gaarka daawadaad kala socotay channelka wararka ee Somali Barays. fadlan muuqaalka haddii ku soo gaara sii share garay oo saaxiibadaada kale la sii wadaag waad ku mahadsantahay daawashadaada muuqaalka mid lamid inta kulmi doono nabadgelyo.